bismillaahir rahmaanir rahiim kulan wacan saaxiibayaal halkan waa National TV qodobada wararkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa kamid ah buuqii gacan ka hadal maanta ka dhacay xarunta golaha shacabka iyo jadwalka doorashada gudoonada oo la shaaciyay xildhibaanmaha Salaad Kulanajiis iyo Cabdishakuur Mire oo la kala qabtay haddaba maxay isku dagaaleen warar ayaan kaga hayaa hubiye lagu garaacay afaafka hore ee Villa Hargeysa iyo ra'iisul wasaare Roble oo si kulul u cambaareeyay falkaasi muxuu ra'iisul wasaare Roble ka yiri foodadii ay maanta sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka warbixin ayaan idinkaga hayaa qodobada kale ee wararkeena waxa ka mid ah kooxo hubeysan oo magaalada Muqdisho ku dilay mid ka mid ah abwaanada caanka ah ee Soomaaliyeed iyo maxkamadda sare ee dalka oo biri la filayo inay dhageysato kiiska dacwadda kursiga Fahad Yaasiin haddaba maxaa laga filan karaa maxkamadda sare warar ayaan idinkaga hayaa waxaad kaloo warkeena ku daaban doontaan xildhibaanmaha Salaad oo wixii maanta ka dhacay baarlamaanka ku tilmaamay baqdin gelin isagoo sheegay inaysan marna ka cabsan doonin isku day kasta oo Villa Soomaaliya ay soo maleegto qodobadaasi oo dhan ayaan caawa faahfaahin doonaa waa habeen Isniin Talaado ayaa soo galaysa 18 Abriil 2022 u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi markale kulanti wanaagsan aan ku bilaabo warkeena buuqii gacan ka hadal ayaa maanta ka dhacay kulankii ay maanta lahaayeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo sidoo kale kulankaasi lagu ansixiyay jadwalka doorashada gudoonada labada aqal xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan mucaaradka Kulanajiis iyo Cabdishakuur Mire oo iyagana ka tirsan muxaafidka isla markaana si indha la'aan ah u taageersan madaxweyne Farmaajo ayaa la kala qabtay haddaba xildhibaanadan ayaa la sheegay inay isku qabteen ama ay isku khilaafeen ansixinta jadwalka doorashada gudoonada labada aqal sidoo kale hubiye ayaa maanta lagu garaacay afaafka hore ee xarunta Villa Hargeysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu si kulul uga hadlay warbixintan ayaa soo koobaysa wixii maanta ka dhacay baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee taageersan madaxweyne Farmaajo ayaa buuqii foodo ka sameeyay xarunta golaha shacabka oo maanta ay shir ku lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya sida laga arki karay muuqaalo laga soo duubay xarunta golaha shacabka ayaa waxa ka muuqday dagaal ay ku sigteen xildhibaanada qaarkood xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane iyo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa isku gacan qaadi gaaray kulanka buuq iyo jahawareer ka dhashay ajandaha qaarkood foodada xildhibaanadan ay ka sameeyeen xarunta golaha shacabka ayaa waxa qayb ka ahaa xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ku heeb ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Kulanajiis iyo Cabdishakuur Mire ayaa doonayay inay fashiliyaan kulankii maanta ee baarlamaanka laakiin waa ay ku guuldareysteen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa soo kala dhexgalay oo kala qabtay xildhibaanada ku sigtay inay dagaalamaan iyadoo xaaladdu cakirneyd muddo daqiiqada ah inkastoo markii dambe la kala dareeray ajandaha kulanka maanta ayaa ahaa ka doodista xeerka doorashada madaxweynaha iyo gudoonada baarlamaanka waxaana ogolaaday 190 xildhibaan oo ka mid ah 197 xubnood ee kulanka joogtay waxaa saakay fashilmay isku dayo badan oo ilaa xalay ka socday magaalada Muqdisho dadaalkaasi oo ay Villa Soomaaliya waday si loo baajiyo kulankii maanta guddiga qabanqaabada baarlamaanka labada gole ayaa shaaciyay jadwalka doorashada gudoonada labada gole intaasi kadib waxaa warbixin laga dhageystay gudoomiyaasha gudiyada doorashada ee labada aqal oo ka warbixiyay qorshe howleedkooda iyo jadwalka ay dejiyeen xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada golaha shacabka oo xildhibaanada u faahfaahiyay shaqadooda ayaa shaaciyay jadwalka wuxuuna sheegay in biri oo ku beegan 19 ilaa 20 bishan Abriil oo kala ah Talaadada iyo Arbacada soo socota ee toddobaadkan la bilaabayo diiwaangelinta musharaxiinta gudoonka golaha shacabka sidoo kale wuxuu sheegay in 23 bishan loo qorsheeyay in la qabto hadal jeedinta musharaxiinta gudoomiyaha golaha shacabka maalinta xigta ee 24 Abriil ayaa sidoo kale loo qorsheeyay in la qabto hadal jeedinta musharaxiinta gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka ugu dambeyntii 25 ilaa 26 bishan Abriil waxaa la siiyay fursad ay xubnaha guddiga isugu diyaariyaan doorashada gudoonka golaha shacabka oo la qorsheeyay inay dhacdo 27 bishan dhinaca kale hoobiyaal ayaa ku soo dhacay afaafka hore ee xarunta golaha shacabka
xilli uu soo dhammaaday kulan ay lahaayeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. xaaladda goobta ayaa mar qura isbeddeshay waxaana qalqal amni laga dareemay xarunta baarlamaanka oo ay ka socotay shaqo adag oo lagu dardargelinayo doorashada. wararka ayaa intaasi ku daraya in dadka dhaawacmay ay ku jiraan laba ka mid ah ilaalada xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku sugnaa barxadda baarlamaanka. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay wixii maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka ayaa sheegay in wax lagu xumaada ay tahay. qoraal lagu baahiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu cambaareynaya falalka argagixisada ee la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka. isku dayga maanta waxa uu ahaa fal fulaynimo ah oo la doonayay in lagu cabsi geliyo baarlamaanka oo ku guda jira waajib gudashadiisa dastuuriga ah si loo cuuryaamiyo in doorashadu dhaqso u dhammaato. waxa uu ra'iisul wasaaruhu dhinaca kale bogaadiyey dadaalka baarlamaanka ee dhammaystirka iyo dardargelinta doorashada. sidoo kale qoraalka ra'iisul wasaare Rooble ayaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha oo bogaadinaya shaqada nafurnimada ah ee ciidamada qaranka ayaa faray taliyaasha ciidamadu in ay labalaabaan dadaalkooda ku aadan sugidda amniga iyo ka hortagista isku day kasta oo lagu carqaladeynayo amniga dalka gaar ahaan xilligan lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka. madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa maanta guuldarooyin kale oo waaweyn kala kulmay kulankii maanta ee xildhibaanada labada gole waxaana hadda si toos ah loo gudagalayaa doorashada guddoonada labada aqal iyadoo weli la diidan yahay xildhibaannimada Fahad Yaasiin. waayahay daawadayaal intaan ka bixin wararka la xiriira baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah golaha shacabka isla markaana mucaaradka aadka looga yaqaano ayaa sheegay in baqdin gelin ay ahayd wixii maanta dhacay. Mahad Salaad oo ay ku sigteen inay maanta dagaalamaan xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire iyo xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulanajiis ayaa waxa uu sheegay in hoobiyaha la soo tuuray uu wax baqdin ah iyaga u keeni doonin. si sarbeeb ah ayuu weerar afka ah ugu qaaday Villa Soomaaliya oo uu sheegay inay isku dayeysay joojinta doorashada guddoonka golaha shacabka balse laga guuleystay sariiqdii ay rabeen. gacan ka hadalkii isaga iyo Kulanajiis dhexmaray inkastoo dagaal weyn uusan ka dhexdhicin ayuu Mahad Salaad marna soo hadal qaadin waxaana uu dhanka kale sheegay in ay cabsigelin aysan ogolaan doonin. waayahay qaybaha hore ee wararka National TV ayaa daawanaysaan markasta halkan nagala soco waxaad heli doontaa warar sugan oo xaqiiqo ah. markana aan eegno guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa maanta shaaciyay shuruudaha laga doonayo musharaxiinta u tartamaysa xilka guddoonka baarlamaanka Soomaaliya iyadoo sidoo kale guddigu uu sheegay in sanadkan la kordhiyay lacagta ay ku tartami doonaan murashaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya. dhinaca kale waxaan sidoo kale warbixintan ku eegi doonaa maxkamadda sare ee dalka biri waxay u fadhiisanaysaa dhageysiga dacwadda kursiga Fahad Yaasiin maxaa laga filan karaa maxkamadda warbixintan ayaan ku eegaynaa. guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa soo saaray habraac lagu beegsanayo agaasimihii hore ee hay-adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo waaye adag ku jira isla markaana loo diiday shahaadada iyo kaarka xildhibaannimo. guddiga ayaa shaaciyay 8 shuruud oo laga doonayo in ay soo buuxiyaan murashaxiinta u tartamaysa guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. shuruudaha uu guddiga soo saaray ayaa waxaa ka mid ah 1 in xildhibaanka isku soo taagaya jagadaasi uu haysto aqoonsiga xildhibaannimo. 2 arjiga caddaynta murashaxnimo. 3 taariikh nololeedka musharaxa ama CV-ga waxa loo yaqaano. 4 2 sawir oo teesara ah. 5 warqadda caddaynta lacag qabashada bangiga dhexe. 6 balanqaadka u hoggaansamida natiijada doorashada. 7 foomka diiwaangelinta musharaxa. iyo shuruudda 8aad oo ah foomka soo jeedinta musharaxnimada. guddiga ayaa shaaciyay shuruudahan kadib markii ay maanta si wadajir ah u ansixiyeen labada gole jadwalka doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka taasi oo qayb weyn ka qaadanaysa dadajinta doorashada madaxweynaha. doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 27 Abriil halka doorashada guddoomiyaha aqalka sare la qorsheeyay inay dhacdo 26 bishan Abriil sida lagu ansixiyay kulankii maanta. labada aqal ayaa 19 ilaa 22 Abriil
waxa ay qabanayaan diiwaangelinta musharaxiinta u taagan guddoomiyaha golaha shacabka iyo kan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. baarlamaanka ayaa kordhiyay lacagta diiwaangelinta murashaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha oo laga dhigay $40,000 halka sanadkii 2016 ay ahayd $30,000. waxaa sidoo kale la kordhiyay lacagta diiwaangelinta murashaxiinta guddoomiye ku-xigeenada oo laga dhigay $20,000 halka markii hore ay ahayd $15,000. dhinaca kale maxkamadda sare ee dalka ayaa lagu wadaa in beri oo talaado ah ay dhegaysato kiiska dacwadda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyadoo horey garyaqaanka guud ee dawladda uu sheegay in hakinta kursiga Fahad Yaasiin loo maray sifo sharci ah, guddiga doorashadana uu awood u leeyahay hakinta kursigan. kooxda ra'iisul wasaaraha ayaa dadaal badan ugu jirta in kursiga Fahad Yaasiin kor loo hayo ilaa ay ka dhacdo doorashada guddoonka golaha shacabka. sidoo kale kooxda Fahad Yaasiin waxay sheegayaan inay garyaqaanka guud ka shakiyeen markii uu diiday inuu ku soo jawaabo labadii maalin ee maxkamaddu siisay. mar kale maxkamadda maalin dheeri ah ayay ugu dartay garyaqaanka, misana 2 isbuuc ayuu codsaday, balse wixii oo dhan ayuu markii dambe garyaqaanka dhinac isaga riixay sabtidii la soo dhaafay. hadda wararka aan helayno waxay sheegayaan kooxda Fahad Yaasiin inay xoogooda isugu geynayaan in maxkamaddu tallaabo qaado, ayada oo la filayo in kiiska loo fariisanayo 19 bishan oo talaadada beri ku beegan. xubnaha guddiga doorashooyinka FID waxay mar hore sheegeen in kursiga Hob 86 lagu laaban doono doorashadiisa, inkastoo ay sii daayeen 2 ka mid ah 4 kursi oo ay sheegeen in lagu wada laaban doono. haddana ma jiraan wax diidaya in kuraasta dhiman la fasaxo, laakiin caqabadu waa inaan kursiga Hob 86 laga geli karin heshiis siyaasadeed oo ay Rooble iyo Fahad aad u kala fog yihiin. Fahad Yaasiin iyo kooxdiisa hadda waxay xoogooda isugu geynayaan maxkamadda sare, laakiin waxaan la ogeyn sida uu go'aanka maxkamaddu u shaqayn karo, maadaama garyaqaankii guud ee dawladda diiday in dacwad loo qaado go'aanka guddiga FID. sidoo kale guddiga doorashada ee FID iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo iskaashanaya uma badna inay go'aan hal dhinac ah oo ay maxkamaddu gaarto inay u hoggaansami doonaan. haddaba daawade, maxay kula tahay adiga? kooxo hubaysan ayaa caawa magaalada Muqdisho ku dilay mid ka mid ah nabadoonnada caanka ah ee aadka looga yaqaanay caasimadda. abwaan bedel jaamac laangare ayaa koox bistoolado wadatay waxay ku qaarijiyeen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir xil uu ka soo baxay masjid uu salaada maqrib ku soo tukaday. marxuumka ayaana ka mid ahaa dadka sida weyn u taageersanaa siyaasadda nabad iyo nolol, isagoo dhowaan tix gabay ah ku ammaanay madaxweyne Farmaajo. lama oga dilkiisa cidda ka dambeysay, mana jirto koox sheegatay dilka iyadoo meydkiisa meesha laga qaaday. marxuumka oo caan ka ahaa Muqdisho iyo gobolada dhexe ayaa waxaa walaalo ay ahaayeen ex xildhibaan Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi Dheere oo ahaa la taliyaha agaasimihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena ee macsalaama.